ciidanka Somaliland oo wata hubkii ugu cuslaa oo hadda ka soo gudbay xadka ay la wadaagaan waqooyi bari waxaa la soo warinayaa in ay soo buux dhaafiyeen duleedka magaalada Laascaanood. xaaladda halkaasi ka jirta iyo daqiiqad walba dagaal qarxi kara ayaan idin la socodsiin doonaa. beesha dhulbahante oo gelaysa dagaal lamida midkii 2023 ayaa diyaarisay ciidankii ka hortagi lahaa Somaliland. ciidankaasi saraakiisha loo dhiibay hubka ay haystaan iyo nooca ay u dagaalamaan waan idinla wadaagi doonaa. xasan sheekh oo ka baaqanaya safarka Laascaanood kadib hanjabaado isdaba joog ah oo ka soo yeeraya Somaliland. saaxiibayaal xog ayaan idinkaga haynaa. xogtaasina waa xog sirdoon. qodobada kale waxaa ka mid ah Puntland ciidamo ay ku soo daadisay wadooyinka loo aado Laascaanood si ay u jeediso dadka Garowe ka baxaya ee Laascaanood u aadaya caleemasaarka Firdhiye. haddaba waa maxay qorshaha Puntland? maxaa ka jira in Puntland iyo Somaliland ay isku dhinac dagaalamayaan oo ay ka soo wada jeedaan ama ay ka soo wada horjeesanayaan waqooyi bari isla mar ahaantaana beesha dhulbahante ay dagaal la geli doonaan? qodobadaas iyo qodobo kale ayaan dul istaagi doonaa. soo dhawaada. taariikhdu waa 13 January sanadka 2026 haddii ay tahay markii idinkugu horeysay aad soo booqataan onkodka wararka fadlan inagu soo biira muuqaalkan sheergalay. haddii aad hore inoola joogteen waad ku mahadsantihiin in aad la socotaan wararkeena degdega ah ee halkan aynu ku baahino. waxaan ku bilaabayaa daawadayaal. ciidanka Somaliland oo wata hubkii ugu cuslaa ayaa soo buux dhaafiyay duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. ciidanka Somaliland ayaana ku dhawaaqay in ay galayaan dagaal rasmi ah oo ay ku qaadayaan deegaanada maamulka waqooyi bari oo ay aaminsan yihiin inuu qayb ka yahay dhulka Somaliland. ciidanka Somaliland ayaa la sheegay in ay la soo baxeen noocyadii ugu dambeeyay ee hubka kadibna ay qaadeen tallaabooyin aan caadi ahayn iyaga oo soo dhaafay xadka ay la wadaagaan waqooyi bari gaar ahaan dhinaca Og. waxaa la sheegay in ay gudaha u soo galeen xalay ilaa saakana waxay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aan horey loo arkin. duleedka magaalada Laascaanood ay soo buux dhaafiyeen saacad walbana waxaa qarxi kara dagaal dhex mara ciidanka Somaliland iyo sidoo kale ciidanka waqooyi bari ee ku sugan aagaasi. dhinaca kale waxaa la sheegay in saraakiil horey Somaliland aysan fayralka dagaalka ugu dhiibin hadda ay gacanta u gelisay fayralka dagaalka. saacadihii la soo dhaafay ayaa la soo wariyay in ku dhawaad 10 saraakiil oo ka mid ah saraakiishii hore ee militariga laga soo waday magaalooyinka Berbera ilaa Burco iyo Hargeysa kadibna la keenay xadka Somaliland ama waqooyi bari ay wadaagaan ee dhinaca Og. halkaasi oo ciidanka lagu fayliyay waa ciidanka Somaliland loogu qaybiyay hub nooci ugu dambeeyay laguna amray in ay qaataan awaamirta saraakiishaas 10 ah oo guddi loo magacaabay. haddaba tan ayaa u muuqanaysa in ay bilow iyo ifafaalo u noqoto dagaal dhex mara Somaliland iyo waqooyi bari oo aan ognahay taariikhda dagaalkii dhex maray sanadkii 2023. beesha dhulbahante waxay gelaysaa dagaal lamida midkii 2023 waxa ayna diyaarisay ciidankii ka hortagi lahaa Somaliland maadaama ay sameynayso dhaqaaqyo ciidan oo xoog leh waqooyi bari dhankeeda waxa ay sameysay dhaqdhaqaaqyo taas lamid ah ciidankii ka hortagi lahaa Somaliland ayaana la diyaariyay. ciidankaas oo qaybaha kala duwan ee ciidanka isugu jira ayaa la siiyay hub nooci ugu dambeeyay. awaamiir ayaa la bixiyay ismada waqooyi bari gaar ahaan ismada beelaha Warsangeli iyo dhulbahante ayaa shiray waxayna ka shireen sidii ay u difaacan lahaayeen dhulkooda amarna ay u bixi lahaayeen haddii Somaliland ay soo weerartanto. waxaa xoguhu ay sheegayaan daawadayaal in hadda aynu idin hadlayno uu shir u socdo ismada oo markaa ka shiraya xaaladda soo korortay. sidoo kale magaalada Laascaanood ee gobolka Sool saacadihii la soo dhaafay wufuud kala duwan ayaa ku sii qulqulaysay. wufuudaasi oo isugu jira saraakiil ciidan, xildhibaano, wasiiro iyo mas'uuliyiin kale waxayna halkaasi u gaareen ka qaybgalka shirka loo madlan yahay in uu markaa lagu caleema saaro madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye. arinta kale ee xusida mudan ayaa ah daawadayaal in magaalada Laascaanood maalinta Khamiista ah ee soo socota uu ka dhici doono shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya loogana dhawaaqi doono go'aano waaweyn oo wax ku ool ah. haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in magaalada Laascaanood uu gaarayo maalinta Sabtida. halkaasina waxaa ka socota qabanqaabo nooci ugu weynaa oo lagu soo dhaweynayo madaxweyne xasan sheekh. arinta la yaab kale ayaa ah in madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaraya magaalada Laascaanood safarkiisa uu hareeyay shaki aad u badan oo la xiriirta sababta xasan sheekh
uu safarkiisa dib ugu dhigay. Sidoo kale hanjabaado isdaba joog ah ayaa dhinaca Somaliland ka imaanaya, kuwaasi oo shaki gelinaya guud ahaan xaaladda iyo arrimaha la xiriira safarkiisa. Waxaa laga yaabaa in madaxweyne xasan sheekh safarkaasi uu khatar amni kala kulmo, inkastoo uu Waqooyi Bari aad u dadaashay oo ciidamadii ugu badnaa halkaasi lagu diyaariyay. Sidoo kale waxaa xusid mudan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu amray in magaalada Laascaanood guri walba oo kamid ah baaris lagu sameeyo si loo ogaado cidda ku dhex jirto iyo nooca ay tahay. Waxaana socda tallaabooyinka la xiriira arrimahaas oo madaxweyne xasan sheekh waxa uu amar ku siiyay cid walba oo ka qaybgalaysa arrinta la xiriirta safarka ama magaalada Laascaanood tagaysa in baaris gaar ah lagu sameeyo, ilaha sirdoon la badiyo si loo qaado tallaabooyin la xiriira ka hortagga weerarada khatarada ah ee imaan kara haddii xasan sheekh uu halkaasi gaaro. Somaliland waxay aad uga xun tahay in magaalada Laascaanood ee gobolka Sool si nabad ah uu kaga dhaco caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya uu ka qaybgalayo madaxweyne Firdhiyana waxa uu guul weyn u arkaa arrintaasi. Muddo ka badan sanad ayuu sugayay in lagu caleemasaaro Laascaanood oo madaxweyne xasan sheekh oo ka qaybgalo. Xoga soo baxaya ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan daawadayaal in la fasaxayo maxaabiista Somaliland ee ku xiran magaalada Laascaanood, iyadoo xogta ay tilmaamayso in magaaladaas Laascaanood lagu magacaabo magaalada Laascaanood weeyaan. Ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya halkaasi gaaray ay indhayn ku sameeyeen xabsiyada dadka markaa waayeelada iyo dadka odayaasha ah ee halkaasi ku jirana waxaa la sheegay in la sii deynayo, halka kuwa kalena la siin doono maalmo fasax ah oo ay xabsiga ka nastaan. Isku soo wada duubay guud ahaanba xaaladaha hadda soo kordhay ayaa u muuqanaya kuwa marba marka ka dambeysa is soo taraya. Somaliland iyo wajiga markaa Laascaanood waxaa hadda ka abuurmaya xaalado adag, waxaana mar walba daawadayaal idinla socodsiin doonaa wararka soo kordha. Dhinaca kale Puntland ayaa ciidamadii ugu badnaa waxay ku daadisay wadooyinka waaweyn ee loo aado magaalada Laascaanood si ay u joojiso dadka garowga ka baxaya ee Laascaanood u aadaya caleemasaarka madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye. Puntland sida Somaliland ay kaga xun tahay in Firdhiye lagu caleemasaaro Laascaanood, taa beddelkeeda waxa ay ku dhaqaaqaysaa fariimo iyo sidoo kale ficilo aan wanaagsanayn oo aan markaasi aysan ka muuqan walaaltinimo. Waxaan ognahay in dagaalka ay galeen Waqooyi Bari ama beelaha marka hore SC loo aqoon jiray dhulbaantuhu uu weyn yahay, markaas in Puntland ay garab u ahayd, balse sanadkan waa ka duwan tahay oo Puntland waxay dhinaca Somaliland kala jirtaa sabab la xiriirta in aysan ogolayn in maamulka Waqooyi Bari uu yeesho ama uu helo maamul u gaar ah. Dhinaca kale Puntland waxay ciidamo ku daadisay wadooyinka loo aado Laascaanood iyada oo rabta in ay joojiso dadka magaalada Laascaanood u aadaya ka qaybgalka caleemasaarka Firdhiye. Tan ayaa ah tallaabo aan horey loo arkin oo aad ay kaga yaabeen dadka og sababta ka dambeyso in markaa Puntland heer noocaas ay gaarto. Wixii warar ah saaxiibayaal arrimahan ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaan idin kula socodsiin doonaa. Soo dhawaada.